Goorsheegtu waa 10kii barkii subaxnimo ee saacadda Hargeysa. Waxaan hadda aan baqaadnay socdaal aan ku tagnay deegaanka Ton oo dhanka koonfureed ka dhaca Hargeysa isla markaana masaafaan u jira in aan ka yareyn 20 kilomitir. Halkani waa barkii kantarool ee ugu horreeyay socdaalkayga ee bafulka u ahaa. daqiiqado koobanna waanu ka gudubnay. Waxaan hadda cagta saarnay jidka weyn ee Toobiyaha xidhiidhiya Hargeysa ilaa deegaanka degmada Salaxley oo haatan ugu ballaaran marka la barbardhiga degmooyinka kala dhigeeda ka dhisan gobolka Murudijeeh. Waana jidka dadka qaarkii u yaqaanaan jidka Dawgacad. Waa jid fac weyn isla markaana sanado badan jiray marka laga imaado dayactirka xilligan lagu sameeyay. Intii aan jidka ku sii jirnay waxay indhahagu qabanayeen bilicda qurxoon ee deegaanadan oo inta badan si weyn indhahaga u soo jiidanayaan isla markaana ku habboon goobo nasasho oo dadka qaarkiiba ay ahayeen kuwa waqti ku qaadanayay goobahaasi. dhowr iyo 10 kilomitir oo socdaalkayga aan ku soo jirnay waxaan hadda soo gaadhnay goob lagu xanaaneeyay geela isla markaana masaafaan waxba ka durugsanayn deegaanka Ton. Geel tiro badan ayaa halkan lagu lisaya halka dadyo tiro badan oo Hargeysa ka soo socdaalayna halkan u yimaadeen daawashada geela ka sokow iibsashada caanaha. waxaan hore u galay xerada geela oo la sheegay in haba yaraatee halkan laga saarin isla markaana ay ku qaataan calafkooda iyo sidoo kale maacuunka kale ee loogu talagalay in halkan lagu quudiyo. oo taabadalkeeda waxa meesha ka baxday masaafadii dheereed ee geela inta badan lagu yaqaanay inay u kala socdaalaan isla markaana ay u doontaan qaraabkooda. sida uu ii sheegay mid ka mid ah shaqaalaha goobtan lagu magacaabo Badar ee geela lagu xanaaneeyo. waxaan adeegnaa dadka loo yimaada maalinta Jimcaha ayaan si wanaagsan ugu soo dhaweynaa oo caanaha ka iibina. marka saasan u weydina caanaha ugu iibina caanaha. dadku waxay ka yimaadaan inta badan Hargeysa inuu yimaadaan iyo fara badan aad iyo aad fara badan oo ururtay inuu yimaadaan anagoo soo dhaweynaa caanaha si wanaagsan fiican ugu iibina. shaqii xoolaha halkan bay ku xariisan iyagoo dibadda uma baxaan oo halkan ma lagu siiyaa calafkooda. halkan bay iska xariisiin halkan caanaha laga soo iska xariisiin. okay calafka maxaa talo waxyaabaha la siiyo midhiya laba dad ka xusto adigu waxa la siiyaa arabki iyo hadaaqay iyo maakaal iyo cawsiyo bal bawdar. مسؤولين كترسان أصحاب السياسة يقولي شقرن كي هالكن ويماتا سيدن كودو قطان عانها ويتلمامين إنيين كوع عصب أو دريا. سيدوي شاقي حلبان مختار محمود دير قداد وكميدا مدنياشا كلها قورتي دهون كل ما يقوب تاسي. إن وحني من أيام كمدة كسمان إلا أفر بلود بني من أي وحنا أنت سيد بدن عادي جاي مع ده تضبط 20 شقة مركز صعود من ما أنت عشمه أو كان لما تكوي كان مع ده waxaana noo soo laba arrimood baan wadaynta badan dhulka hawada iyo magaalada ka soo yarabaxo iyo talabaad inaan geela iyo caanaha soo dhamtoon. meeshan waxay ka bedeshay wax fara badan maxay ahaydee xiisiga ama dareenka dadka caanaha geelo hayeen. waxa diraysa marka hore geeli oo la lisaayo oo caanihiisa fresh aad helayso. talabaad waxa weeyaan de waxaad arkaysaa geel aad u qurux badan oo indhaha ku doogsanayaan. dadkuna aad bay u xiiseeyaan waxa yimaada dad kala duwan oo fara badan siyaasiyiin aqoon-yahan qurbo joog iyo maxay dad ganacsataa oo intuba maalmaha nasashada u yimaada si ay hawada u soo bedeshaan. dadyo tiro badan ayaa hadda halkan ka soo baxay iyagoo sita caano oo goobta aan waxba naga durugsanayna goobta lagu qaybinayo. hadda garabkayga waxa soo istaagay Yaxay Sheekh Ibraahim oo kamid ah dhalinyarada reer Hargeysa isla markaana isagoo halkan u soo caana doontay caanihiisa waa sita caanaha soo qaatayba. waa soo qaatay haye dawaad aragtayo maanta waxa weeye maalin Jimcaha inta badanna sad la socotaan maalinta Jimcaha waa dee fasax baa lagu jiraa. dadka inta badan magaalada Hargeysa waxa laga yaabaa qayb badan oo dhalinyarada kamid inay halkan imaadaan oo ay soo caana doontaan. dawaaka aad iyo aad idinka wada bogaadinayaan maanta halkan noogu timaadeen. halkani waa goob lagu xareeyo nirgaha geela laga reebo oo tiraan nirgaha ku xareysan aan yarayn markii aan booqday goobtaasi. halkanina waa goobta darka u ah isla markaana biyaha laga waraabiyo xoolaha. halkanina waa goobta la dhigo calafkooda iyo sidoo kale cuntooyinka kale ee lagu quudiyo geela. halkanina waa goob lagu iibiyo caanaha oo kuyo iyo safaf dhaadheer lagu jiray xilligan goobta booqday isla markaana dadku ay siteen weel kala duwan oo ay ugu talagaleen in caanaha ku qaataan. dadka ayaa ku sheegay in si weyn ugu faraxsan in gudaha Hargeysa xilliyada fasax ay ka soo baxaan. waa xira aad u qiimo badan inamada joogaana waan mahadnaqaynaa waa inama aad soo dhaweeya dadka dareen ahaan aad baan ugu faraxsanahay inaan xiradii geele gambar iyo hawd naga aanu kaga nimi inaan Hargeysa dusheeda marka ka hadlo aad baan ugu faraxsanahay.
waayeelka marka laga yimaado dhankooda waxaa ka mid a dadka halkan yimaada da'yar tiro badan oo dhankooda dhamidda caanaha ka sokow si weyn u xiiseynaya dhugashada geela sida uu ii sheegay mid ka mid a carruurta da'da yar ee goobtaan kula kulmay intii aan ku jiray xerada. haye maanta fasax baad tahay haye halka waxaan soo doontay caano caanaad soo doonatay geela hore ma aragtay haye khamiistii jimcaha bartaan baata taariikhan geelu waxa uu ka mid yahay halbuulayaasha tiidhaxaad u ah Soomaalida isla markaana sanado badan si weyn u manaafacasan jireen oodooyinkii laga soo gudbay intii lagu jiray dagaalada sokeeye si weyn la tilmaamo in dabargo xoogan ku yimi balse xilligan u muuqda mid laga soo kabanaya isla markaana ganacsada iyo dadka intoodu buuxdo ay fahmeen qorshayaasha ku aadan samaynta goobahan lagu xanaaneeyo geela oo duleedka Hargeysa tirahan si weyn ugu soo badanaya mararka qaarkood suuragal ma noqoto sida ay sheegeen mas'uuliyiinta goobtan in caana suuqa la keeno laga helo goobta maadaama dadku isla halkaasi ay caanaha u soo doontaan faysal maxamed aadan faysal fifa iyo sidoo kale cabdi fataax ismaan TV-ga caalamiga ee Soomaali Cable deegaanka Toon ee duleedka Hargeysa.